بسم الله الرحمن الرحيم رمضان مبارك وهبينمو ثلاثة أو أي أربعة سو جليسو تضبية توانك بشا فبراير سنة كالبكون لباتن يلح أو كوبهجن سجال يلباتن كبشا شعبان سنة كون أفر بقولا فرتن يتضبا تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله يبرامج كي قبانها قضبده عاو برامج كان آن إذن كوهينانا وحا كمدا dhaqdhaqaaqa ciidan dhiilo colaadeed iyo hub urursi xooggan oo laga dareemayo waqooyiga Itoobiya halkaasi oo laga cabsi qabo in uu ka qarxo dagaal dhexmara ciidamada dawladda iyo fallaagada TPLF ee Tigreega maroodiyaal caraysan oo dilay 6 qof kadib markii ay ku tunteen xaafad ka tirsan gobol ku yaala waddanka Hindiya madaxweynaha Iiraan oo ka hadlay wadahadaladii dalkiisa oo la yeeshay maanta وبدي كسر ودك مريكانك أو كأدن أرمها نيوكليركا مريكانك دنكودا waxay ka hadleen qodobo ku aadan waxa la isku raacay sheekada ugu dambeysay barnaamijka aridin kugu hayaana waxay ku aadan tahay ciyaartoyda muslimka ah ee ka ciyaara horyaalka Premier League Ingiriiska oo loo joojin doono ciyaaraha si ay u afuraan xilliyada kulamadu ay socdaan haddii la soo gaaro xilliga afurka dhammaan qodobadan iyo waliba sheekooyin kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa si oo lagu soo warramayo in ay ka taagan yihiin xiisado colaadeed hub urursi iyo waliba cabsi weyn oo dagaal iyadoo ciidamada federaalka Itoobiya iyo kuwa Tigreegu ay halkaasi ka wadaan hub urursi xooggan gaar ahaan xuduudda gobolka Tigreega arrintaasi oo sare u qaaday welwelka ah in dagaalo culus fooda la isdaro wakaaladda wararka ee AFP ee laga leeyahay Faransiiska ayaa baahisay iyadoo soo xiganaysa ila diblomaasiyadeed oo reer galbeed ah oo codsaday in aan la magacaabin in ciidamada Itoobiya ay hareereynayaan gobolka Tigreega halka ciidamada Tigreeguna ay u dhaqaaqeen xuduudahooda mid ka mid ah diblomaasiyiinta ayaa waxa uu yiri tiro badan oo ciidamo ah oo is hor fadhiya ma aha calaamad wanaagsan dadka deegaanka ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqan ciidan uu yahay mid aan horay loo arag iyadoo labada dhinac ay si ballaaran u abaabulayaan ciidamo mid ka mid ah dadka ku nool gobolka Tigreega ayaa ka digay in haddii beesha caalamku aysan cadaadis ku saarin dhinacyada inay wada hadlaan qatar dagaal ay muuqanayso gobolka Tigreeg wuxuu soo maray dagaal dhiig badan oo ku qobtay intii u dhaxaysay 2020 ilaa iyo 2022 markaas oo ciidamada federaalka oo ay taageerayeen maleeshiyad maxalli ah iyo ciidamada Eritrea ay la dagaalameen jabhadda xoreynta shicibka Tigreega ee TPLF qaramada midoobay ayaa qiyaastay in ugu yaraan 600 oo kun oo qof ay ku dhinteen dagaaladaasi halka in ka badan 2 milyan oo qofna ay ku barakaceen heshiis nabadeed oo la saxiixday 2022 ayaan wali si buuxda loo dhaqan gelin dagaalo ayaa mar kale ka qarxay aagaasi bishii hore taasi oo keentay in si ku meel gaar ah loo joojiyo dowladda diyuuradaha ee gobolka dhinaca kale Itoobiya iyo Eritrea oo horay si wada jir ah uga soo horjeeday kooxda TPLF ayaa hadda isweydaarsanaya eedeymo iyadoo xiisad cusub ay ka dhex aloosan tahay Itoobiya ayaa Eritrea ka dalbanaysa in ciidankeeda ay kala baxdo dhulka Itoobiya laakiin Asmara ayaa si adag u beenisay eedeymahaasi waxaana ay ku tilmaamtay kuwa aan sal iyo raatoona lahayn imikana Hindiya halkaasi oo lagu soo warramayo in maroodiyaal caraysan dad ay ku laayeen qasaare dhimasho dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay kadib weerar kooxa maroodiyaal ah oo duurjoog ah oo caraysan ay ku qaadeen tuulo ku taal bariga Hindiya halkaasi oo ay ku dhinteen 6 qof oo ay ku jiraan 2 ilmood sida ay sheegeen mas'uuliyiinta maxalliga ah Fikas Kumar Ujwal oo ah mas'uul ka tirsan waaxda kaymaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Jharkhand ayaa sheegay in ku dhawaad 18 maroodi ay weerareen tuulada Gandwar ee degmada Hazarbakh aroornimadii Jimcaha maroodiyada ayaa waxa la sheegay inay soo galeen duleedka magaalada Fiidki gaar ahaan halka ay weerarada ay ka geysteen
kadibna subaxnimadii xigtay ayay waxay bilaabeen inay ku soo yaacaan dadkii deganaa deegaanka. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dadka dhintay ay ku jireen 4 qof oo isku qays ah oo ay ka mid ahaayeen ilmo yar oo 1 sano jir ah iyo dhallaan 3 bilood jir ah. dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan sidoo kale in dhibanayaashu ay ku dhinteen iyagoo isku dayaya inay ka baxsadaan guryahooda kadib digniin lagu baahiyey codbaahiyaal. laakiin maroodiyaasha ayaa waxay ahaayeen kuwa degdeg ku socda, kuwaasi oo dadka markaasi ku istaagay ama ku joogsaday. waxaana lagu soo warramayaa inay adkaatay xitaa in la xakameeyo maroodiyada. koox gaar ah ayaa la sameeyey si ay ula socdaan dhaqaaqa maroodiyada, waxaana la keenay khubro dheeraada si looga ilaaliyo inay galaan dadka deegaanka. dhacdadan ayaa dib u soo cusboonaysiisay walaaca ku saabsan in isku dhacyada sii kordhaya ee u dhexeeya dadka iyo duurjoogta ee gobolka Jharkhand, halkaasi oo maroodiyadu si joogto ah ay ugu gudbaan deegaanada dadku ay ku nool yihiin. mas-uuliyiintu waxay sheegeen in qoysaska dhibanayaasha la siin doono magdhow. waa hagaag, waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyey ee wadahadaladii maantay ka dhacay magaalada Geneva ee waddankaasi Switzerland. madaxweynaha Iiraan oo ka hadlay arrimahan iyo Mareykanka dhankooda waxay ka yiraahdeen iyo sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka. wadahadaladii maanta ka dhacay magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland oo ay ku kulmeen wufuudda ka kala socota Iiraan iyo Mareykanka ayaa wadahadaladaasi waxaa ka soo baxaya faahfaahin dheeraada. sarkaal Mareykan ah ayaa caawa shaaca ka qaaday in Iiraan ay soo bandhigi doonto soo jeedimo faahfaahsan oo la xiriira arrimaha iyo waxa la isku hayo 2 toddobaad gudahood. waxaana markaasi sarkaalkan oo magaciisa aan la magacaabin sabab la xiriira xasaasiyadda warkan ayaa waxa uu sheegay in horumar la sameeyey laakiin weli ay jiraan arrimo badan oo u baahan faahfaahin. horumar waa la sameeyey laakiin weli waxaa jira faahfaahino badan oo laga doonayo dhanka Iiraan. Iiraaniyiintu waxay sheegeen in ay ku soo laaban doonaan madasha 2 toddobaad gudahood iyagoo soo gudbin doona aragtidooda, ayuu yiri sarkaalkaasi Ameerikaanka ah. hadalkan ayaa ku soo aadaya saacado un kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan Abbas Araghchi oo hogaaminaya wafdiga dalkiisa uu xaqiijiyey in horumar wanaagsan laga gaaray wareegan wadahadalada marka loo eego kii hore. wuxuu sheegay in wafdiga Iiraan uu gaaray isfaham ku saabsan mabaadi'da aasaasiga ee wadaxaajoodyada ay la leeyihiin Mareykanka, isagoo farta ku fiiqay in hadda ay jirto waddo cad oo loo sii marayo wadahadalada. si kastaba ha ahaatee, Araghchi waxa uu tilmaamay in tani aysan ka dhignayn heshiis dhow in la gaari doono, balse ay tahay bilowga waddada. waxaa sidoo kale uu sheegay in labada dhinac ay ka shaqayn doonaan oo ay isdhaafsan doonaan nuqullo ka mid ah qoraalada suurtagalka ay heshiiska. wadahadaladan ayaa imaanaya toddobaadyo un kadib hanjabaadyada soo kordhaya ee Mareykanka, iyadoo lagu soo warramayo in 6dii bishan February wadahadaladii dhacay kuwii maanta ay ka yidil badan yihiin marka loo eego sida la iskugu dhow yahay in la gaaro heshiis. dhanka Iiraan haddii aynu ku sii soconno, madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa caawa isna waxa uu daboolka ka qaaday in dalkiisa uu doonayo natiijooyin muuqda oo ka soo baxa wadahadalada nuclearka ee ay la leeyihiin Mareykanka saacado yar kadib markii uu dhamaaday wareegga cusub ee wadaxaajoodyada oo ka dhacay magaalada Geneva. isagoo ka hadlayay kulan culamo ay isugu timid, Pezeshkian waxa uu sheegay in wadahadaladani ay socdaan iyadoo si buuxda loola jaan qaadayo ogolaanshaha hogaamiyaha sare ee Iiraan Ali Khamenei, isagoo xusay in ujeedadu ay tahay in si dhab ah wax looga qabto arrimaha jira, balse arrimuhu aysan ahayn oo keliya hadal. waxaan si dhab ah u raadinaynaa natiijo, waxaan rajaynaynaa in wadadan ay keento horumar la taaban kara, ayuu yiri madaxweynaha Iiraan. madaxweynaha Iiraan ayaa sidoo kale sheegay in Tehran ay diyaar u tahay in la xaqiijiyo inaysan doonayn hub nuclear. gebi ahaanba ma doonayno hub nuclear. cid kasta oo rabta arrintaas inay xaqiijiso albaabku waa u furan yahay, ayuu yiri madaxweynaha Iiraan. waa hagaag, haddaba haddii aynu dul istaagno macluumaadka ugu dambeeya ee wadahadaladan iyo wixii saxaafadda loo soo dusiyey, horta waxaa la sheegayaa in aan laga wada hadlin wax ka baxsan arrimaha nuclearka. Iiraan waxay soo bandhigtay mowqif cad. waxay tiri arrintan gantaalada iska caabinta
iyo arrimaha gudaha waddankayaga ma laga hadli karo. nuclear ma laga hadlaya annagaaba diyaar u ahba nuclear in laga hadlo. isku mowqif baan nahay bay ku leeyihiin madaxweynaha Mareykanka oo muxuu yahay Trump wuxuu leeyahay Iran ma yeelan karto nuclear. Iraniyiinta marka waxay leeyihiin anagu ma doonayno nuclear. Anagu waxaan rabnaa kaliya inaan ka faa'iideysano tamarta uraniumka oo nuclear ahaan looga faa'iideysanayo warshadaha iyo hawlaha kale ee rayidka sida caalamku ogol yahay. laakiin dhankaas dood ayaa ka hor imaanaysa Iraniyiinta. waxaa leeyahay adduunka ma jiro waddan kaydiyey 60% uranium haddii uusan samaysanin nuclear. waxaa laga hadlayaa 10%, 5%, ugu badnaan 20%. laakiin markaad geysid 60% macnaheedu waxa weeye waxaad u socotaa 90% inaad gaarsiisid uraniumkan la bacrimiyey ama la naaxiyey. haddii markaa 90% uu gaaro maxaa imaan kara? khubaradu waxay leeyihiin waxaa imaan karta 10 ilaa 11 madax oo nuclear in Iran samaysan karto. waa sababta marka loo leeyahay Iran 440 kilogram ee ay bacrimisay ama naaxisay uraniumka waa in dibadda la geeyaa oo laga qaadaa waddanka Iran. ayagoo inta aysan wada hadallada bilaaban waxayba soo gudbiyeenba mowqif. waxay leeyihiin 20% baan gaarsiinaynaa uraniumkan aynu bacriminay, laakiin hal shuruud waa in la qaadaa gebi ahaanba cunaqabataynta. haddii aan la qaadayn anagu diyaar baana. dhinaca kale Iraniyiinta wararka caawa waxaan ku soo gudbinay barnaamijkii goordhow ta baxay maanta inay xireenba gacanka leeyahay Hormuz. maraakiibtii Mareykanka oo dhooban saldhigyada Mareykanka oo ku yaala gacanka Bershiya, markabkii weynaa Abraham Lincoln oo badda Carabta jooga ayaa waxa la sheegay ogeysiis baa la bixiyay. waxa la yiri intaas badda gacanka Hormuz cirkay dhulku diyaaradna ma mari karto, markana ma mari karo. maxaa dhacay? tababar baan sameynaa ciidanka IRGC waa ciidanka ilaalada gacanka Islaamiga. arrinta marka waxa khubaradu ay ku tilmaamtay inay tahay fariin loo diray Mareykanka oo ah adiga kaliya go'aan ma lihid. dabcan gacanka aad u jeedaan gacanka Hormuz in ka yar 40 kilomitir ballaciisa weeye. inta badanna wuxuu ku yaal Iran, biyaha Iran buuxiga. inkastoo Cumaan iyo Imaaraadka u yar dhow yahay, gaar ahaan Cumaan, laakiin meesha ugu yar ee iskaga soo dhawaanaya Iran ayaa xukunta. waxay kaloo meeshaas ku leedahay jasiirado dhanka Imaaraadka ay ka qabsatay, jasiiradaha Abu Musa iyo jasiiradahaas laftigooda gantaalay ku rakabatay Iran. khubaradu marka waxay leeyihiin Iraniyiinta arrintan maanta fariin bay ahayd ay dirayaan. dhinacna wada xaajood baan kaga jirnaa, dhinacna tilaabooyin ciidan baan qaadeynaa. oo maxay tahay sababtu? adduunka waad qaadaysaan. maanta maxaa soo baxay? ilaa 36 diyuuradood oo F-35 ayaa Mareykanku ka soo waday wadamada Yurub saldhigyada military oo ku leeyahay oo gobolka bariga dhex u keenaya ciidamo soo daabulaya. arrintu marka meel adag baraysa. barnaamijyada caawa waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamij sheegaya dagaalkan suurtagal ay tahay in Trump dib u dhigo ilaa iyo bisha March. sababaha barnaamijkaas ayaan idinku soo gudbin doonaa oo caawa barnaamijyada soo geli doona haddii aan la idmo. marka wuxuu ku soo kordhay arrimahan waynu arki doonaa. waa tahay imika waxaynu soo gaarnay sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabayn jirnay. aalaab waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen. horyaalka Ingiriiska ayaa wuxuu ku dhawaaqay ciyaartoyda muslimiinta ee ka tirsan kooxaha horyaalka ka tirsan in haddii la gaaro xilliga afurka iyagoo ciyaartii ay ku jira inay afuri doonaan. maaha markii ugu horeysay, laakiin arrintii waa la sii adkeeyey. weliba arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli cunsuriyadda ka dhankaha muslimiinta ay aad u sii kordhayso. dalka Britain sidoo kale waa ka mid yahay wadamada Yurub ee ay arrintaasi ku soo kordhayso. inkastoo laakiin masaajidada, arrimaha diinta, cibaadada ay tahay arrin xor ah oo dood aysan ka taagneyn. laakiin arrintan bal hadda aynu eegno. waxaa leeyahay mas-uuliyiinta horyaalka Premier League ayaa waxay ku dhawaaqeen in mar kale loo ogolaan doono in la hakiyo ciyaartoyda muslimiinta ah inta lagu jiro bisha Ramadaan haddii ay qorraxdu dhacdo iyagoo sooban ay u baahan yihiin inay afuraan. tilaabadan markii ugu horeysay waxaa la hirgeliyey
sanadkii 2021 waxayna u ogolaanaysay ciyaartooyda in si kooban ciyaarta loo joojiyo iyadoo markaasna la samayn doono in ciyaartooyda ay afuraan kadibna garoonka dib ugu soo laabtaan arrintan waxay dhacday hadda ka hor bishii Abriil 2021 kulan dhex maraya kooxda Leicester City iyo Crystal Palace ayaa laba ciyaartooy oo kooxahaasi ka tirsan oo muslimiin ah waxaa loo joojiyay ciyaartii iyadoo markaana intay garoonka ka baxeen afuray wahaga inta ayaan kusoo gabagabeynaya caawa barnaamijka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusubtahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha Allah inta ka horeysa Ramadaan Mubaarak nabadgelyo